Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa booqasho ugu tagay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuhu oo shalay gelinkii dambe qarax ismiidaamin ah lala eegtay dhaawac uu ka soo gaaray. Maxamed Ibraahim Macalimuhu ayaa isbitaalka la dhigay isaga oo soo gaaray dhaawacyo dhowr ah isla markaana haatan ay caafimaadkiisu aad u soo kabanaya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqashadii ugu tagay waxa uu Ilaahay ugu baryay Maxamed Ibraahim Macalimuhu caafimaad degdeg ah inuu Ilaahay siiyo isla markaana uu ka soo kaco dhibka soo gaaray uu uga dhigo mid fudud oo uu ka kaco insha Allah taala. Ra'iisul Wasaaraha ayaa aad u bogaadiyay dhakhaatiirta la tacaalay arrimihiisana gacanta ku hayo isaga oo aadna ula dardaarmay in ay gacanta si fiican uga hayaan aynan xaaladiisa aad ay ugu warhayaan. Ra'iisul Wasaaraha oo booqashadan xalay saqdi dhexe ku tagay cisbitaalka ayaa waxa uu ahayd mid uu dadaal dheeri ah ugu bixinayo uuna ku xushmeynaya afhayeenkiisa xukuumadda federaalka. Macalimuhu oo ahaa wariye rug cadda ah dhowaanahana siyaasadda u xub siibtay ayaa dhaawiciisu waxa ay noqonaysaa mid ay xukuumadda federaalka aad ay ugu walwasho isla markaana ay dadaal xoogan ku bixiso sidii caafimaadkiisa wax looga qaban lahaa. Ha yeeshee caafimaadkiisa aad buu u soo taraya waanu ka soo kabanayaa wuu ladan yahay hadduu Ilaahay yiraahdana waxay u eg tahay mid uu ka kici doono.